sideedda habeenimo iyo mid kamid ah masaajidda caasimadda oo laga ogayo salaada taraawiixda. da'yar duqow ayaa intaba habeen walbo inta lagu guda jiro bisha Ramadaan ku ogo mid kamid ah salaadaha sunnooyinka ah ee la dugto 30 maalmood ee soonka, waana mid kamid ah astaamaha lagu yaqaano bishan marka loo eego Sheekh Maxamed. taraawiixdu waxa weeyaan bisha Ramadaan ay caan ku tahay. salaada cisha kadib ayaa la tukadaa, witrka intaan la tukan baa la tukadaa, waana sunno rag iyo haween ay sameynayaan. nabiga ayaa sameeyay calayhi salaatu wasalaam. nabiga kama uusan go'in intuu noolaa salaada taraawiixda wuu tukan jiray, dadkana inay gutaan ayuu ku boorin jiray. asxaabtii iyo taabiciintii na way qabsadeen, annagana waan ku sii soconnaa Soomaha marka oo calaamad kamid calaamooyinka Ramadaan maxaa lagu gartaa? maalintii in la sooman yahay, habeenkiina taraawiix lagu jiro Soomaha. waliba qiimaha ay leedahay maxay tahay? dadka taraawiixda qalbigoodu way ku weyn tahay. masaajidkii baa la iman, goor hore la iman, safafkii waa la buuxin, waa la joogi ilaa taraawiix ay dhamaato. taraawiixda wadar ahaan waa 8 ragcadood oo loo geenayo 3 witriya, taa oo ka dhigaysa 11 ragcadood oo sida qaalibka ah lagu dugto juz kamid ah 30 juz ee Quraanka Kariimka. waxaana dhacday in masaajidda qaarkood ay ka badiyaan intaas iyaga oo ku dugto suurado kooban. Sheekh Maxamed ayaa ugu yeeraya muslimiinta inay dhaxda u xirtaan ka faa'iideysiga bishani. taraawiixda u timid taraawiixda gal daalka taraawiixda ee inta kooban ah waxaad ka helaysaa abaalmarin aan dhammaan baad ka helaysaa. haweenka ma tukan karaan? way tukan karaan, meel gooni ay ku tukanayaan. marka waxaan kala u baahanahay inaan ogaano maxay ay tahay taraawiixda faa'iidada ay leedahay. awalan raashinkii aad ku soo cabaysay ayaad kaga nasan. ثانيا ilaahay baad u dhawaatay. intaasi waxaad akhrinaysid ay sujuudaysid ilaahay subhanahu wa ta'ala aynur rahma ayuu ma artay kugu eeganaya. intaasi aad wajiga dhulka ku haysid ama ilaahay ay hortaagan tahay dambi dhaaf baad ka helaysaa, malaa'igta ayaa ku ducaynaysa. marka waxaad ka jawaabtay marka ma haddii ilaahay uu ku faray inaad ku mahadisid nicmada uu ku gaarsiiyey. Ramadaan baa soo galay, nicmo ayaad gashay. nicmadaasi aad gashay waxa weeyaan in Ramadaan aad guuleysatay. maxaad ku guuleysatay? maalintiina waa soontay sidii ilaahay ugu talagalay ayaa u soontay. habeenkiina waa qiyaam baad gashay oo Allah subhanahu wa ta'ala ayaad ku mahadinaysaa inuu maanta ilaahay soonkii kugu simay. marka taraawiixdu waa shukri kale oo ilaahay aad ku shukrinaysid. cilmi baaris dhawaan la daaqaaday ayaa tilmaamaysa in taraawiixdu ay qofka saa'imka ah ee ka qaadiso jirkiisa caajiska, sidoo kalena firfircooni maskaxeed iyo mid ruuxaniyadeed ay siinayso. waxaana intaas u sii dheer samaha iyo abaalgudka oo qofka muslimka ah alla agtiisa uga xisaabtamayo maalinta aakhiro.